Subaxnimadii hore ee saaka waxaa magaalada Jigjiga laga helay meydka qof shacab ah oo Soomaali ah kaas oo aan la garanaynin haybtiisa ilaa iyo hadda, sidoo kale cidda dishayna aan la garanaynin. Dhismaha weyn ee gadaashiisa oo ay ganacsi ku leeyihiin dadka Itoobiyaanka ee aan u dhalanin qowmiyadda Soomaalida ayaa ah meesha laga helay meydka. Lama garanayo cidda rasmiga ah ee ka dambeysay. Dadweyne fara badan ayaana isugu soo ururay goobtaasi, kuwaasoo ka kala yimid daafaha magaalada Jigjiga. Sidoo kale ciidamada ammaanka ayaa goobtaasi soo gaadhay, iyagoo baaritaano ku bilaabay goobta uu ka dhacay falkaasi. Qofkan Soomaaliga ah oo la sheegay in la gowracay ayaa waxaa ag yaallay meydkiisa buskudka loo yaqaano koosharowga oo ay isticmaalaan ciidamada militariga Itoobiya. Waxaa loo malaynayaa in dadka geystay dilkani ay samayn rabeen inay ku marin habaabiyaan dadka baaritaanka samaynaya, maadaama buskudkani koosharowga loo yaqaano ay ciidamada Itoobiya caan ku yihiin. Waxaa la qiyaasayaa dadka qalalaasaha ka wada habeenadii lasoo dhaafay magaalada Jigjiga inay rabaan inay dusha u saaraan ciidanka militariga Itoobiya si ay mucaaradad iyo kacdoon uga hor keenaan madaxweynaha cusub ee dowlad deegaanka Soomaalida Mudane Mustafa Cagjar. Meydka qofkii shacabka ahaa ayaa loo qaaday isbitaalka iyadoo baaritaano ay ku bilowdeen.